walaalow baarlamaanka wax qaab daran ka dhacay baarlamaanka waxa ka dhacay wax fool xun ay ka mid tahay aan ku gumaysto dictatoriyad waxaan anigu rabo sameey shisheeyaha wuxuu isoo faray aan kugu fuliyo qarannimo ma rabo Soomaalnimo ma rabo dawladnimo ma rabo horumar ma rabo xoogaaga yar akoonka la iigu soo riday baan arkaa caloosh u shaqeysta xildhibaano nala ah marna qori qaadanay marna nagu mudaabarahay marna nagu banaan baxay meel laga istaagay leey faro ku tiris ah ayaa Soomaalnimadii caaqabo ku ah waxaan farayaa ciidamada ammaanka meel walba ay joogaan la faheeni maxay abnigeenaba halis ku jiro golihii shacabka iyo sharciga iyo xafiisyadii waa laga shaqeyn laaya dhinaca abniga horta in laga warqabo waa codsanaya marka ugu horeyso dad aan ognahay maalinta iimaanayaan anoo xildhibaano wasiir ah ayaa la ii keenay ninka hadda burka qaatay 30 jirka ah magaalada dhan uu leeyahay ana 2 mitir Soomaali kuma lihi 30 jir baan ahay 30 milyan waan haystaa buu yiri ninka anoo xildhibaano wasiir ii yimid oo korkayga wax ku noqday dadkii ayaga ah oo Soomaalinimada dhicitaanka u aaminsan laaluush rabo qabiilka xumaa ku jiro qarannimada qabiil xataa ma ahan caloosh u shaqeystayaashii loo baahnaa 60 in la iska xoreeyo dadkan iska xoreeyna shandadii ay soo dhiibeen aqaba naga anagu marka waxaan codsanaa Soomaali weyn meel walba ay joogto inay nala arkaan dadka shanta xabo qarannimada diidan dib u dhaca Soomaali ka shaqeynayo meel walba dunida laga joogo ummad yahay arka dhalinyarada soo kacday oo arka Soomaalnimo waa la idin diidan yahay koox isbahaysata idin diidan kufsiga iyo dhibaatada iyo Soomaali wax ka dhacayna shalay dhalay haddana daba taagan maanta Soomaali dhexdeeda inta booshka ku jirta dadkii soo qaxiyay ayaga wali taagan oo shaqadooda isbaara ahayd awal baqal lagu keenay siyaasad si qaldan ku soo galay nimanka ayaga caaqibada wax fool xun ay ku dhaqmeen farahay nool yimaadaan anaga gaabsanay anaga qarannimada u taagan qaran la'aan ma ahaan karno Soomaali la'aan dawlad la'aan ma ahaan karno hooyaanahay aan bareelka dunida nahay bini'aadanimo haday jirto waxaan codsanaynaa nimanka in laga qabto inta xisaaban dunida caaqibada ku waa la og yahay.